Kiliibkan waa siraaca murqaweynta. Siraaca murqaweyntu waa ciyaar loolan oo adag, waxayna ku dagaalamayaan dhisidda imbiradooryadooda. Diseembar 1972 waxay ku degtay markabadii Apollo 17 dayaxa dushiisa, waxayna ahayd safarkii ugu dambeeyay ee bini'aadam ku tago dayaxa dushiisa. waana markii ugu fogeyd ee bini'aadam u safro meel dhulka ka fog. maxay Maraykanku ugu laaban waayeen safarro cusub? mise waxay ahayd khiyaano iyo dacayad weyn si ay uga hortegi lahaayeen Sofiyeedka dagaalkii qaboobaa? si aan u awoodno inaan ka jawaabno su'aalahaas, waa inaan u laabannaa bilowgii sheekada. maxay u bilaabantay safarka hawada? guushii cilmiyeed ay xaqiijisay safarradii Apollo waxay ahayd barnaamij weyn ay NASA gacanta ku haysay ilaa 1963 kadib dhammaadkii barnaamijkii Mercury, dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka. kadib waxaa bilaabmay dagaalkii qaboobaa ee Maraykanka iyo Sofiyeedkii qabsashada adduunka intiisa kale, laakiin iska hor imaad la'aan. waxay ahayd tartan hub. waxay labada qayboodba hormariyeen gantaallada qaaradaha isaga goosha iyo kan waxgumaadaba. tillaabadii labaadna waxay ahayd dagaalkii hawada, kadibna gaaridda dayaxa. labaduba waxay sameeyeen aalado waaweyn, gantaallo iyo markabadaha hawada. waxay ku guulaysteen Sofiyeedkii diriddii Yuri Gagarin 1961. wuxuuna ahaa insaankii ugu horreeyey ee taga hawada fog. 4 sano kadib guushii markabadii ugu horreysay ee Sputnik 1. kadib guulaha Sofiyeedku waxay u muuqatay inay iyagu leeyihiin gacan sarraynta, waxayna iclaamisay NASA mashruuceedii ogaanshaha hawada, iyadoo ay dacminayaan ciidanka Maraykanka iyo hay'ado cilmi oo waaweyn. dhammaadkii sanadkii 1963 wuxuu hadalku gaaray meel sare, waxayna NASA noqotay sanadkeedii ay ugu miisaaniyadda badnayd, waxayna miisaaniyadeedu ahayd $6 milyan, waxayna u dhigantay 4% miisaaniyadda waddanka Maraykanka ee sanadkaas. wuxuuna bilaabay Maraykanku inuu uga hormaro Sofiyeedkii, khaasatan mashruucii ugu horreeyey ee Germany. kadibna waxay noqotay taariikh weyn. wuxuuna ahaa ku degiddii Apollo 11 dayaxa dushiisa sanadkii 1968. wayna ku noqnoqotay NASA dayaxa dushiisa Apollo 11 ilaa Apollo 17. dhammaadkii sanadkii 1970 kadib 1 sano Apollo 11 waxay bilowday NASA khidaddeedii mustaqbal, wuuna dhammaaday fikirkii noolayntii xarumaheeda hawada. waxaa la diray 3 safar, waana dhammaaday mashruucii Apollo. kulli waxay ahaayeen cadaadis ka yimid aqalka cad, wuxuuna rabay in la joojiyo kadib Apollo 15. laakiin hay-adaha cilmi baarista ayaa ku adkaystay diriddii Apollo 16 iyo Apollo 17. wuxuuna ahaa hagaha markabadda Yuri Gagarin, aakhirkii insaankii aada dayaxa. ma aha NASA hadda sidii ay ahayd 60meeyadii oo dhaqaalaha loogu bixin jiray. khaasatan dhibkii riixaha gantaalaha 1973. dadka badankood iyo siyaasiyiintu waxay qabeen inaan dhaqaale dambe lagu bixin markabad labaad oo la diro. wayna isbeddeshay horumarinta xukuumadda kadib markay ku guulaysatay hawada, wayna yaraatay baarista cilmiyeed ee NASA. kadibna waxaa bilowday makuubkii hawada oo ay soo saareen ciidamada Maraykanka iyo robodyo, waxayna muujisay isbeddelka Maraykanka ee NASA iyo ka shaqaysiinta makuubyada. wuuna kala furfurmay mashruucii Apollo, waxayna aadeen khubaradii meelo kale. kadib wadahadalkii Sofiyeedka iyo Maraykanka 1972 waxaana lagu heshiiyey hoos u dhigga samaynta hubka. madaxda Maraykanku way ka hadlaan
aadista dayaxa, laakiin hadda ma ahan. Waxaa laga yaabaa sababo kadib mana soo hordhigaan xidadkaas ku saabsan, laakiin xukuumaddu meelo kale ay ahmiyadda saartaa. taasna waxay yaraysay barnaamijyada hawada, waxayna juhdi ku bixisaa dagaalada sida Bariga Dhexe iyo Afghanistan, iyadoo ku baabi'isa balaayiin dollar. hadda jawaabtu waa adiga. ma dhan baa in insaan dayaxa tegey?